Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay kaga soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qof iyo cod ah. Sidoo kale baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen go'aankii golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya ay ku ansixiyeen kuraasta aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir. Sahra Cabdi Axmed ayaa tallaabada baarlamaanka Puntland uu qaaday ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ka mid ah golaha wakiilada ee Puntland. guddiga doorashada waxaan soo jeedinaynaa kow xeerka ay keeneen waxay leeyihiin doorashada waxaa lagu gelayaa qof iyo cod sida kalena waxay leeyihiin lagu gelayaa 4.5 ma waafaqsana dastuurka. waxaa kaloo ka mid ah xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga qudhoodu aan dastuurka ka waafaqsanayn. waxaa kaloo ku jira eedahaysa laba xilli joogeen haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood golayaasha labada aqalka baarlamaanka iyo madaxweynaha inay yidhaahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo firsadaanu ka gelaynaa. waxaan u aragnay inay yahay muddo kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyanna aan la isla ogolaan. waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. dabcan waxay u baahan tahay waqti. waxay sheegeen inaysan ku filnaan waqtigeeda haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale midda biometric ah oo computerized ah. marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan. waayadana dhan waa lala socday in xilligeeda aysan ku dhici karin. marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay guddi dhexdhexaado oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. marka Puntland maxay ka dhex aragtaa? dalkan waad ogtahay duruufta Soomaaliya xaaladda ay tahay hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad ka warhaysaa duruufaha inagu xeeran waddankeena waad ka warhaysaa. arrintan dalkan iyo doorashada waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama fulin karaan 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sareeya go'aan kama gaari karaan. arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxad looga tashaday dabadeedna arrintan dalka doorashada waxay ku dhacdo sidii horeba ay ugu leeyahay ahayd qorisu dhiibka qofka maanta jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa carabkiisuna ka qaadi karaa diidana ma jiro laakiin muddaxileedka iyo dastuurka ha lagu joogo intaasaanu leenahay. waa gartay dhinaca kaleeto waxaad ka hadasheen qodobka ku salaysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah. sidoo kaleetana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go'aankaasi. maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay kaga soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qof iyo cod ah. sidoo kale baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen go'aankii golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya ay ku ansixiyeen kuraasta aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir. Sahra Cabdi Axmed ayaa tallaabada baarlamaanka Puntland uu qaaday ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ka mid ah golaha wakiilada ee Puntland. aqalka sare waxaa weeyaan waa waxaa loo marayaa qodobka ku xataa 70 qodobka dastuurka waa ku horjaalay halka loo marayo inta iyadoon midna loo marin wuxuu leeyahay gacanta iyada qudhooda ama malqa waxaasina waa wax ku soconaya maaha. aqaladii hore kuwana ku socon maaya waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka Banaadir kaliya oo qabanaya gobolada joogeen ka maqan waxaa kamid gobolka oo Banaadir iyagu kadigii 2012 markii laga hadlayay aqalka sare la go'aansanayay markii doorashada lagu go'aansanayay waxaa la aragnay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol soo hadlay gobolka Banaadir dastuurka xubnaaba loo soo waa laga helayaa guddi
waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan dabcan waxay u baahan tahay waqti waxay sheegeen inaysan ku filneen waqtigeeda haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale midda biometric ah oo computerized baarlamaanka marka ay xilliyada ay wada sheegeen sida isku hirgeliyaan waayadana dhan waa lala socday loogu darageeda ismuxuu yahay go'aan marka xaliimana waxay leedahay anaga dhexaad ayaan nahay odayntii golaha wakiilada dhexdhexaad oo baarlamaan ay ansixiyeen oo habda soo xaadiray ku yimid ayaan nahay marka Puntland maxay ka dhacay go'aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso Soomaaliya hadda ay tahay shaynaanka doorashooyinka lagu galo aniga waa ka warhaysa kordhiyo furaashu duruufaha inagu xeeran waddankeena waxay tobankan kuwana waxay oran karaan beelo badan baa doorashada madaxweynaha afartan aan ku wada tobankan kala wada kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Puntland oo u waramayay Sahre Cabdi Ahmed sidii horeba ay ugu leeyahay qorisudibka qofka maanta jooga ama xildhibaan ama madaxweynaha waa tartami kara carabkiisuna ka qaadi kara diidana ma jiro laakiin muddaxileedka dastuurka hal lagu joogo intaas aanu leenahay waa gartay dhinaca kale waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah sidoo kale tan golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go'aankaasi maxaad ku diidan tihiin hadii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka saray wal saad aragto horta annagu aragtida aanu ka qabno waa aragti sharci waxaanu nadi gobolka Banaadir hadda qaybta qodobka aragtida ka hooseeya waxa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo kala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharci ah loo maro waxaanu ka hadlaynaa dastuurka federaalka iyo sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelayo iyadoo waxba laga bedelin matalan tirada saad ogtahay aqalka sare waa toddoba waxa weeyaan waa 54 mudane waxaa loo marayaa qodobka waxayna ku xadday 72 qodobka dastuurka habraaciyadiina waa ku hor yaalayna habka loo marayo inta iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yiri gacanta loo taago 13 baa la qaatay waxaasina walaal wax ku soconaya maaha aqaladii hore ku xildhibaanadii hore sidaas uma imaan kuwana ku socon maayaan waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka Banaadir kaliya xuquuq kama maqna gobolada ka maqan waxaa kamid ah gobolka Sool iyo Sanaag oo Banaadir iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayay aqalka sare la go'aaminayay madashii siyaasadda lagu go'aamiyay waxaa la isla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol soo hadlay gobolka Banaadir saddexda gobol tiro xubnaaba loo soo qorsheeyay waa laga helayaa guddi dadka gacanta ku haysta dawladda waa laga helayaa iyagiina maaragtay waxa weeyaan hadaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo raac sharci loo marayo maadaama 54 ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa dastuurka lagu furay lahayaa aankii lama marin ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka Banaadir in loogu daro muxuu yahay go'aanka Puntland ee waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codeyntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray dood aad yeelateen muxuu yahay go'aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso horseeda baan ku sheegay aqalka hoose awood uma laha inuu aqalka sare u kordhiyo furaas u kordhiyo marka hadii 13 kuwana waxay oran karaan beelo badan baa furaas ka maqan tahay anana 40 baan u kordhiyay qofkaan ka qabno ugu dambeyn ee Puntland waxay leedahay dastuurka federaalka waxa uu qabo iyo ku dhaqmaysaa waana sifo sharci baa loo maray sharciga loo soo noqdaan leenahay kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad lagu garayaa qof sida kana waxay leedahay 4.5
4.5 ma waafaqsana dastuurka waxaa kaloo ka mid ah xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga qudhoodu aan noqon dastuurka ka waafaqsanayn waxaa kaloo ku jira eedahaysa laba xilli dowladda hore joogeen haddana way joogeen 4 bilood iyo 7 bilood golayaasha labada aqal baarlamaanka yidhaahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo fikradaanu ka gelaynaa waxaan u aragnay inay yahayn muddo kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyanna aan laysla ogolaan waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan dabcan waxay u baahan tahay waqti waxay sheegeen inaysan ku filnaan waqtigeeda haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerized ah marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan waayadana dhan waa lala socday in xilligeeda aysan ku dhici karin marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay guddi dhexdhexaad oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay marka Puntland maxay ka dhex aragtaa dalkan waad ogtahay duruufta Soomaaliya xaaladda ay tahay hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad ka warhaysaa duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa arrintan dalkan iyo doorashada waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol lagama fulin karaan 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sareeya go'aan kama gaari karaan arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday si dhaxalada looga tashaday dabadeedna arrintan dalka doorashadana ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dheeystay ahayd qorisudhiibka qofka maalintaa jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa carabkiisuna ka qaadi karaa mid diidanna ma jiro laakiin muddaxileedkiiyo dastuurka ha lagu joogo intaasaanu leenahay waa gartay dhinaca kaleeto waxaad ka hadasheen qodobka ku salaysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah sidoo kaleetana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go'aankaasi maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka saray wal saad u aragto horta annagu aragtida aanu ka qabno waa aragti sharci waxaanu nadi gobolka Banaadir hadda qaybta qodobka aragtida ka hooseeya waxa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo kala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharci ah loo maro waxaanu ka hadlaynaa dastuurka federaalka ayaa sheegay habka loo marayo wixii laga bedelay iyadoo waxba laga bedelay matalan tirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 54 mudane waxaa loo marayaa qodobka waxayna ku xataa 72 qodobka dastuurka habraacyadiina waa ku hor yaalayna habka loo marayo inta iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yidhi gacanta loo taago 13 baa la qaatay waxaasina walaal wax ku soconaya maaha aqaladii hore xildhibaanadii hore sidaas uma imaan kuwana ku socon maayaan waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka Banaadir kaliya xuquuq kama maqna gobolada ka maqan waxaa kamid ah gobolka Sool iyo Sanaag oo Banaadir iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayay aqalka sare ee la go'aaminayay madashii siyaasadda lagu go'aamiyay waxaa la isla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol soo hadlay gobolka Banaadir 3 gobol tiro xubnaaba loo soo qodeeyay waa laga helayaa guddi dadka gacanta ku haysta dawladda waa laga helayaa iyagiina maaragtay waxa weeyaan haddaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama 54 ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa dastuurka lagu furay waxaa lama marin ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka Banaadir in loogu daro muxuu yahay go'aanka Puntland ee waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codeyntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray dood aad yeelateen muxuu yahay go'aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso horseeda baan kuu sheegay aqalka hoose awood uma laha inuu aqalka sare u kordhiyo kuraas u kordhiyo marka haddii 13 kuwana waxay oran karaan beelo badan baa kuraas ka maqan tahay anana 40 baan u kordhiyay qofkaanu ka qabno ugu dambeyn Puntland waxay leedahay dastuurka waxa uu qabo iyo ku dhaqmaysaa waana sifo sharci ah baa loo maray sharciga loo soo noqdaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Puntland oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed